kulan wanaagsan daawadayaal halkan waxaan ku qabanaynaa wareysi gaar ah oo aan ku marti qaadnay wasiirka wasaaradda amniga galmudug Cismaan Ciise Nuur Taardhuleed oo aan maanta ka wareysan doono arrimaha amniga galmudug aan su'aal ka weydiin doono galmudug toddobaadyadii la soo dhaafay deegaano ka tirsan waxa ka dhacay dagaalo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac bas sababtay iyo barakac meelaha qaar dagaaladaas waxaan ka weydiin doonaa wasiirka su'aalaan ka weydiin doonaa iyo arrimo kale oo ayaguna dhacdooyin kale oo amniga ku saabsan oo deegaanka ka dhacay wasiir marka hore wareysigan gaarka ah ee TV qaranka ku soo dhawaaw aad ma santahay oo dhawaay su'aasha ugu horeysan ku weydiinaya wasiir waxay tahay dagaalada dhacay toddobaadkan iyo toddobaadii horeba ugu dambeyntii waxa dagaal ka dhacay deegaanka Mareer Gur ee gobolka Galgaduud waxa kale oo dagaal ka dhacay deegaanka Xeraale ee isla gobolka dagaaladaas maxay ku saabsanaayeen iyay u dhaxeeyeen bismillaahir rahmaanir rahiim ma santahay waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo horta Mareer Gur dagaal kama dhicin waxa tagay ciidamada dowladda gobolka Galmudug ay leeyihiin oo meesha u tagay inay jidgooyo qolo dhigatay la dagaalamaan xaqiiqdana cid iska ahayd meesha ciidamo joogin markay tageen oo jidgooyada ka qaadeen waxa soo weeraray qoladaas hadda la baxday gobolada dhexe sidaas arintaas waxa meesha ka dhacay meesha ma ahayn dagaal la dhihi karo galmudug waxa way qaaday هذا nimankaas golada dhaxla baxay al-sunna iyo al-sufo xil raba lagu sheego taas ee xaraale tan soo laaban xaraale waxa la socotaan muddo 3 bilood ka badan oo soonkii baan dhaho ay ahayd markii ay weerar ku qaadeen nimanka daan sheegayo dad badan oo deegaanka jooga barkaciyeen dad badan dileen iyadoo la garanayn ujeedka laga leeyahay dagaalkaas dadkii ku qaadeen dadka deegaanka ahaa xaqiiqdii dadka deegaanka ku isdifaaceen iyadoo wax badan oo gurmada ama taageero aan ka helin dowladda galmudug waxaan anaga markaas xeelanaynay waxay ahayd nabad baa jirtay madaxweynuhu ku baaqay ama la waday madaxweynuhu horey u waday xilli kastana siyaasaddeena anaga waxay ku saabsaneed in si nabadgelyo ah lagu xalliyo waxyaabo kasta oo ka jira gudaha galmudug marka dagaalkaas sidaas u ahaa wadaba dheeraad xaqiiqda dagaalkaasu dadka deegaankuna waxay go'aansadeen iyagoo iskaashanaya ilaahayna tala saaranaya in markaas ka difaacaan xaqiiqdii aqalkana ugu guuleysteen sala socotaan xalal hadda waa nabad waxaa jooga dadkii deegaanka iyo shacabkii waxaan hadda laga shaqaynayaa sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadkii barakacay haddii ilaahay mo wixii aan karno markaas waxyaabahaas ka jira deegaanada waqti wasiir hadal hayn badan ee jirtay iyo eedo galmudug loo soo jeedinayay oo ku aadan in dagaaladaas ay galmudug ay qayb ka ahayd horta eedeymahaas maxaa uga jawaabaysaa marka koowaad horta waa nasiib darro xilli kasta waxaan jirin iyo eed aan meesha qaban in la soo geliyo galmudug siyaasaddeeda iyo qorshaheedu wuxuu ku salaysan yahay nabadgelyo cid walba oo wax nagala dhexeeyaan ama wax tabanaysana waxaan rabnaa inaan ku soo dhaweyno miiska hadalka hadday jirto galmudug deegaanada ka mid a weerartay ama dhibaato ka geysatay muddada 2 sano ay jirtay wala sheegi karaa 2 sano anaga weerarna la ku ahaa nimankani waxay weerareen caabuda odogtiin dad bay ku dileen dad barkaciyeen waxay soo weerareen Godlabe wad ogtiin dhibaato ka geysteen waxay soo weerareen Xeraale dhibaato ka geysteen wulna sidii wadan dulabadkii iyo rabshadii iyo qaskii iyo foodadii waxaan isleenahay xaqiiqdii wadani ugu jiraan dadka goboladan dhaxdiga dowladda gobolka galmudug uu ku dhisan yahay innaguna xilli kasta waxaan ka fikiraynaa nabadgelyada iyo dirisnimada walaalnimada iyo ummadan midnimada inaan ka shaqeyno ma ahan aan dagaal ku jirno ma ahan dagaal ku baaqayno walina waxaan leenahay galmudug xuduud ay leedahay dastuur ay leedahay waa la dhisay 2015 baa lagu dhisay cadaado deegaanada ka goobanta waa la yaqaanaa waxaan rabnaa cid walba oo tabashay konseen qabtaay inay wada hadalka miiska wadaalka soo fadhiisato waxay tabanaysaa sheekato waxaan rabnaa inaan u sheegno walaalayayn cid maanta qoray wax ku xallin karta ama dal ku maamuli karta ma jirto shacabka rabitaankooda iyo dowladnimada in la raaco ayaan soo jeedinaynaa xaqiiqdii wax badan baan ka fogaanay daandaansi iyo colaad ay nimankaas huranayaan inaan bedelkeeda ka jawaabno qulni saxaafaddu wala socotaan arrintaasi mar iyo laba saddex ma dhicin
weli way socotaa marka haddana waxaan leenahay miiska hadalka imaada systemka aad wax ku leedihiin waa galmudug ku soo dhawaada wax walba wax alaala wixii halka uu qabo oo aqligu qabana waxay galmudug diyaar u tahay inay nimanka ku soo dhawayso waa tahay caaqibka galmudug hadafka ay ka leedahay goboladan ay ka taliyaan ahlu sunna ama ay ka taliyaan ama ay haystaan ururka kale al-shabaab hadafka galmudug ay ama qorshaha ay ka leedahay muxuu yahay ma inay xoog ku qabsato ku soo ceshataa horta dee gobol ay haystaan anagu ma ogin degmooyin nimankani waxay joogaan dhuusan reeb oo ah degmada ama caasimadda galmudug iyo deegaano kale oo la xiriira dadkaasi deegaanada jooga iyo dhammaan iyagu waxay qayb ka yihiin dowladda galmudug fikir kala duwanaanshaha jira tabasaa jirta say sheeganayaan innaga hadafkeennu 1 2 3 waa inaan arrintaas ku xalino si nabadgelya waxaad og tahay deegaano fogfog iyo degmooyin ayay joogaan qolada nabadiidka al-shabaab haddii aan la tegin caasimaddii waa marinka keliya ee loo mari karo in deegaanadaas fog oo shabaabku haystaan laga xoreeyo hadafka dowladdu waa in dhuusarab la tago lagu tago si wada hadal iyo nabada haddii la haydmo si looga sii gudbo deegaanada fog cadowga haysto waxaa yeelay ogtihiin dadka galmudug waxaa dhisatay 12 qabiil ilaa 4 iyo 5 beelood oo ka mid ah deegaanadooda waxaa jooga shabaabka dee dan dhuusarab la teginna arrintaas waxaad dareemi kartaa inaysan si dhaqsa ah uga qabsoomi karin qorshahaas aniga wadnaa galmudug wax kasta oo colaad horin kara ama dhibaato keeni kara waa ka dhowr sano ka fogaanaysaa haddii la haydmo wixii deenaal ku qasbo oo annagana la soo weerarana waa isdifaacina haddii la haydmo aan ka soo gudubno mawduucaas galmudug maadaama adiga mar kale wasiirkii lagu magacaabay laguna dhaariyay xilkii maxaa qorshayaal arrinta hadda aa wadaan oo aad dadka u sheegi kartaa oo amniga ku saabsan wallaahi 2 sano soo dhaafana dee waxbaan qabanay hadda xilliga jira cusubna waxaan rajaynaynaa inaan meesha ay joogtay hor uga sii qaadno waxaad ogtihiin 2 sano jirna waxaan soo qabanay howlo badan ciidamada badan booliiska la tababaray daraawiishta la tababaray kuwa badan oo ciidamada kamid ah waxaan ku wareejinay ciidamada militariga interventionka ciidamada isku dhafka lagu daray waxaan dhisnay taliskan galmudug mas'uuliyadda howlahaas oo dhan way socdaan waxaan gaarnay deegaano badan oo dee dowladdu aysan hor u joogin oo hadda shaqadii laga hayaa arrintaas in amniga ama ciidamadu waxay ku socotaa si xawliya ilaa idinkiis waxaan rajaynaynaa xilliyada fooda lagu soo in sanadkan ay usa dhimaan inaan ka gaarno guulo badan arrimaha amniga meelo badan oo maanta ay uga jiraan gaabis aan usoo gudubno isbaarooyinka sharci darrada shalana madaxweynaha galmudug axmed cali gelle oo deegaanka la soo hortagay wuxuu ka hadlay isbaarooyinka sharci darrada ee deegaanka yaalla asagoo waliba ballanqaad u sameeyey dadka isbaarooyinka jooga inuu mushaar ugu bedelayo see loo qaaday haddii isbaarooyinkaas awal wada hadallo badan oo lala galay ama dad loo diray ama odayaal ha noqoto dhaqan ama ha noqoto culimaadudiin inay ka xal waayeen madaxweynuhu sheegay haddii fariinta madaxweynuhu u diray ay qaadan waayaan isbaarooyinkaas lagu qaadan waayo maxaa kaloo qorshaha ku xiga horta dee waxaad og tahay isbaaro waa isbaaro sharciyanna in la dagaalamo waayo isbaarada u taalla dadka maleeshiyabeelaadka ama jidgooyinka sharci darrada sharciga nooga degan haddaan nahay wasaaradda amniga waa in la dagaalamo waayo madaxweynuhuna waa sheegay annaguna waa sheegaynay horena u sheegnay hadda kor waa la dagaalamay xaqiiqdu waxay tahay ma la dul qaadanayo isbaaro aan dowladdu ogeyn ama checkpointii aan dowladdu ogeyn checkpointayaasha waad ogtihiin qaarna amniga deegaanka lagu kontroolaa qaarna waxaa lagu qaadaa taakuleynta ama dhaqaalaha wax aan kuwaas ka ahayn oo sharci darra ah wasaaradda amniga waxaa qorsheedu yahay in la dagaalamo waa arrin cad oo aan shaki ku jirin horena way u dhacday haddana u taaganay haddii lahayn waa tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waraysigii gaarka ahaa ee aan la yeelanay wasiirka amniga galmudug cismaan ciise nuur taar dhuleed oo aan ka waraysanay arrimaha amniga galmudug iyo dhacdooyin ka dhacay deegaanka toddobaadyadii lasoo dhaafay intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waraysiga gaarka ah oo aad kala socoteen telefishinka qaranka soomaaliya waxaana soo jeedinayay waraysigan anigoo ah cabdi xasan awowge sidaas iyo nabadgelyo